ilaahay waan aqbalay buu ducadiisii mulkiga adduunka oo dhan ma gacanta ka gelinay maaha lacag wuxuu ilaahay weydiistay maaha dibloom iyo tacliin yar maaha waa mulk waliba isaga dabadii cid dambana aanu qalmayn ayaa ilaahay yidhi ilaahow isii dembigayga ilaahow dhaaf mulkiga caynkaasan ilaahow isii ilaahay wuxuu yidhi markiiba wuxuu yidhi waan ka aqballo ducadii waan siinay mulki intee leeg baa la siiyey markaa hadalka shimbiraha la baray quraanjada hadalkeegii buu maqlay dabaylaha loo sakhiray jinka iyo shayaatiinta iyo cafaariidda ayaa gacantiisa ilaahay soo geliyey oo amarkiisay badaha intay ku galaan jawaahirta iyo dhamankay u soo saarayeen aqalladay u dhisayeen waddooyinkay samaynayeen waxalli wuxuu u baahdoo dhan nebi sulaymaan jinka iyo shayaatiintu u diraayey waxalli waxa shimbiro iyo hawada duuloo dhanna korkiisay sidaa u socon jireen waxushira lisulaymaana junuudahu min aljinni waalinsi waatayr fahum yuuzacuun حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأكد عيسى دعاداس ملكي عالم كردن إلهي انتو السوق هذي أي إلهي النبي سليمان قعنت كقلي بلا شروط راح شروط لكم حدين مرقاسا إلهي هذا عطاؤنا تنوى الضيق ضيدي فمن أو أمسك بغير حساب هذا دونتا قال ليسو وعدا دونتا كو قال ليسو أو سي هذا دونتا حيسبا لقويري وأحمد لقاو يدين ما يتن لقو بحساب ما يبطن وأدويو لكن